Badhasaabka Gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo telefishinka Ariel wareysi gaar ah ku siinayay hoyga uu ka degan yahay magaalada Burco ayaa waxa uu gudoomiyuhu guud ahaanba ummadda Islaamka ugu hambalyeeyay Curashada sanadka cusub ee Islaamka waxaana kamid ah hadaladiisii sidatan waxaan halkan ka hambalyeenayaa munaasabada sanadka cusub ee Islaamka awadi 1440 hijriya dhammaan ummadda muslimka ah meel kasta ay joogaan ummadda reer Somaliland gaar ahaan dadweynaha gobolka Togdheer waxaan leeyahay sanadkiisa kale waxaan ka baryaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu gaarsiiyo bash iyo barwaaqo horumar inaynu sameeyno ku talaabsano ayaan idinku hambalyeeynaya. Badhasaabka Gobolka Togdheer waxa uu sidoo kale baaqnabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dirsan deegaanka dhumay ee gobolka Sool waxaana uu gudoomiyuhu ugu baaqay beelaha walaalaha ee ku dirsan deegaankaasi in ay joojiyaan colaadda isla markaana ay nabadda qaataan waxaana kamid ah hadaladiisii sidatan sidoo kale anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan waxaan jecelahay halkan inaan uga diro baaq nabadeed dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya gobolka Sool gaar ahaan dhumay iyo dharkeengeeye waxaan leeyahay walaalayaal dagaalka hala soo afjaro waxa weeyaan dad walaalaabatiin dad islaamabaatiin dad Ilaahay meel ku wada beereebatiin waxa weeyaan dagaalku xalaalo wax uu soo sidaa ma jiro wiiloon baa ku dhimanaya hanti baa ku burburaysa raxmadda Ilaahay baa ku dheeraanaysa waxaan idin leeyahay dagaalka hala joojiyo nabadda hala qaato dadka iyo maatada iyo dadka nugul ee maalin walba dushooda la isku qabsanayo dhibaatada laga daayo colaadda hala soo afjaro aqligu ha shaqeeyo nabadii iyo walaaltinimadii iyo wada noolaanshihii intaas oo maaragtay lagu soo noolaa dib ha loogu noqdo hal isu tanaasulo walaalaa la yahay Ilaahayna waxaan uga baryaa inuu colaadaas sida ugu dhaqsaha badan leh uu soo afjaro sanad wacan oo wanaagsan ayaan idin rajaynayaa inuu Ilaahay sanadkan inooga dhigo kiisa kalena aynu ku gaadhno haddii reer Somaliland ahay barwaaqo iyo horumar midnimo iskaashi iyo walaaltinimo. Abdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi iyo Axmed Maxamuud Ibraahin Axmed Boqor telefishinka caalamiga ee Ariel Burco.